madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa aqbalay in uu booqasho rasmi ah ku tago magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida ay sheegtay madaxtooyada Villa Soomaaliya qoraal ay sii deysay Villa Soomaaliya kadib kulan dhaxmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Yoweri Museveni ayaa lagu xusay aqbalaadda safarka iyo in labada hogaamiye ay isla qaateen si xoojinta xiriirka labada wadan iyo muhiimadda xasilinta Geeska Afrika iyo dib u casriyeynta heshiiska difaaca ee labada wadan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kordhiyay safaradiisa tan iyo markii ay kooxda Al-Shabaab ay culeysyo soo saartay labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo labadaba laga ilaaliyo caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. marka difaaca laga hadlo Museveni waa muhiim. Uganda waa dalka ugu badan ee ciidanka nabad ilaalinta ay ka joogaan Soomaaliya 18 sano la soo dhaafay. waxay mar kale aqbaleen Uganda in ay ka qayb noqdaan howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee Soomaaliya kaasi oo loo yaqaan Azam. iyadoo labada madaxweyne ay shalay si wadajir ah u soo dhaweeyeen bilaabashada howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee Soomaaliya. tababarada ciidanka, kaalmeynta xagga hubka iyo dariiqa nabad ilaalinta ay Uganda ku caawisaa Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007. madaxweyne Yoweri Museveni inkastoo marar fara badan hadalla xanaf uu ku diray madaxda Soomaalida marka xagga caawimaad laga hadlo waxa uu ku jira hogaamiyaasha Afrika ee gacanta muuqda siiya Soomaaliya. lama sheegin waqtiga ay noqon doonto booqashada soo socota ee Yoweri Museveni. safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee wadanka Uganda ayaa la aaminsan yahay in sidoo kale aanan ka marnayn inuu madaxweynuhu codsaday inuu dib ugu laabto dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Museveni hoosta ay ka xariiqeen ahmiyadda la dagaalanka kooxda Al-Shabaab sida lagu sheegay war-saxaafaadka lagu faafiyay Villa Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii ay qabsatay kooxda Al-Shabaab deegaanka masaajidka Cali Gudud isaga oo ku sugnaa deegaanka Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu booqday wadamada Turkiga, Djibouti iyo Uganda kuwaas oo dhammaan saameyn ku leh arrimaha amniga ee ciidanka Soomaaliya. waxaana socdaaladan lagu lifaaqay dhammaantood inuu madaxweynuhu dalbaday in garab laga siiyo dagaalka iyada oo dhammaan dowladahani soo dhaweeyeen codsiga madaxweyne Xasan Sheekh ee dhinaca dagaalka. haddaba sidee u aragtaa adiga?